waxaan filimkani kaga hadli doonaa qadiyadda Falastiin iyo sida ay soo martay ilaa iyo 50kii sano ee ugu dambeeyay ayadoo soo martay dagaallo kuwii ugu xumaa ee dunida ka dhaca. Falastiin waxay ku taallaa meel juqraafi ahaan aad u fiican, waana meel uu Alle barakeeyey. waxaa halkaa deganaan jiray Yaabuusiyiin, halka maanta loo yaqaano Qudusna waxaa iyadana lagu magacaabi jiray Yaabuus. waxaa sidaasoo kale la sheegaa in la odhan jiray dhulkii Kancaaniyiinta. haddii aan ka hadalno sida ay ku baxday magaca Falastiin, waxaa Falastiin dhanka badda ah ka soo galay qabaa'il la odhan jiray Balastiya, waxayna markiiba ku magacaabeen Falastiin. Falastiin waxaa soo maray xukumo kala duwan oo taariikh dheer leh. dhulka Falastiin waxaa ku wada noolaa Muslimiin, Kiristiyaan iyo Yahuud aad u tiro yar, waxayna ku wada deganaayeen si nabadgelyo ah. dhammaadkii qarnigii 19aad waxaa soo ifbaxay halis aad u weyn, taas oo ahayd inay Yuhuudi ama Sahnuuniyiinta ay qabsadeen meelo badan oo ku hareeraysan Falastiin, waxayna ku talagaleen in ay kala qaybiyaan dhulkii Muslimiinta. sannadkii 1878kii tiradii dadkii deganaa Falastiin waxay ku dhoweyd 460,000 oo dadka asalka ahaa, waxayna tirada Yuhuudda deganayd xilligaasii ahayd Falastiin 3%. waddamo badan oo Yurub ah ayaa waxay ku fikireen sidii ay isaga fogeyn lahaayeen Yuhuudda ku soo qaxday dalalkooda. si ay isaga fogeeyaan darteedna waxay ku fikireen inay hal waddan u sameeyaan Yuhuudda, laakiin halkee ayay doonayaan inay dejiyaan? arrintan ayaa waxaa baaritaan ku sameeyey wariye Yuhuudi ah oo lagu magacaabo Theodor Herzl, wuxuuna ninkaasi alifay buug ugu magacdaray Darjudansaad, oo macnaheedu yahay maamulka ama dawladda Yuhuudda, ama in la sameeyo waddan kulmiya dhammaan Yuhuudda oo dhan. sannadkii 1896kii waxaa la doortay waddamo badan oo la dejin karo Yuhuudda, waxaana ka mid ahayd Falastiin, Argentiin, Uganda iyo Mozambique, iyo waddamo badan oo Soomaaliya ku jirtay. waxay Yuhuudda isugu yimaadeen shirar badan oo isdaba joog ah si ay go'aan ugu qaataan halkii la dejin lahaa Yuhuudda dunida ku kala firirsan, waxayna ugu dambayntii ay doorteen Falastiin. Yuhuuddii wakhtigaasi jirtay waxay cadaadis xooggan saareen Maraykanka iyo Ingiriiska in ay ku taageeraan fikirkooda ahaa in ay degaan Falastiin. waxaa u soo qaxay Falastiin 25,000 oo Yuhuud ah, kuwaasi oo ka soo qaxay Ruushka, Booland iyo Romaniya, waxayna Yuhuudi deganeed Falastiin tiradoodii noqotay 5%. waxaana filimkani ku arki karnaa sidii ay Yuhuudda ugu soo qaxeen Falastiin iyagoo lagu soo daadgureeyey maraakiib waaweyn. si waliba ha ahaatee, soo qaxitaankii Yuhuudda waxay dadka deegaanka ku noqotay mid dhibaato badan ay kala kulmaan dhanka dhaqaalaha, guryaha iyo deegaanka guud ahaanba. sannadkii 1891kii carabtii deganeed Falastiin waxay ku baraarugeen dhibaatada ku soo badanaysa dhulkoodii, waxayna cabasho ugu tageen maamulkii Cismaaniyiinta si ay ugu hortagaan Yuhuudda ka soo qaxaysa Ruushka. laakiin ma aysan istaagin soo qaxitaankii Yuhuudda. waxaa mar kale u soo qaxay dhulka Falastiin 40,000 oo Yuhuud ah, waxayna noqotay tirada dadka Yuhuudda ah ee deganeed Falastiin markaasi 8%. daciifnimadii ku dhacday dawladdii Cismaaniyiinta iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida waxay dawladdii Ingiriiska iyo Faransiiska kala qaybsadeen dhulkii la odhan jiray Shaam, ayagoo ka duulaya heshiiskii lagu magacaabi jiray Sykes-Picot. intaasi kadib Ingiriiska wuxuu qabsaday Falastiin isagoo raacaya heshiiskii San Remo sannadkii 1920kii. waxay Ingiriiska fulinayeen arrintii uu wacadka ku maray Belfort. haddaba waa maxay wacadka Belfort? sannadkii 1917kii waxa uu Ingiriiska si hoose wacad ugu maray Yuhuudda inuu ku kaalmayn doono sidii uu ugu samayn lahaa waddan ay leeyihiin, isagoo farta ugu fiiqay Falastiin, iyo inuu u sahli doono gaadiidkii ay ku gaari lahaayeen Falastiin. sidaasoo kale waxaa arrintaasi taageero xooggan ku bixiyey Maraykanka. intaasi kadib waxaa markii saddexaad Falastiin soo gaaray mawjado Yuhuud ah, waxaana batay tiradii dadkii Yuhuudda ahaa ayadoo ay gaartay 12%. waxayna taasi ku dareensiinaysaa halkii ay joogeen sannadkii 1923kii ayagoo tiradooda ahayd 3%. haddaba sidaad aragto, waxay Yuhuudda ahaayeen kuwa dega Tel Aviv oo keliya, ayagoo islamarkaana u dheereed in ay boobaan dhulkii Carabta. waxaa la qabtay 7 shir oo waaweyn, kuwaasi oo ay lahaayeen shacabkii reer Falastiin,
iyagoo ka biyadiidanaa ballanqaadkii belford, waxaana halkaasi ka bilowday kacdoonkii koowaad ee reer falastiin. waxaa sidaasoo kale xigay kacdoonkii yaava 1921, waxaana halkaasi falastiin ugu shahiiday 157 qof, halka yuhuuddana ay ka dhimatay 46 qof. waxaa mar kale shir lagu qabtay naabolis oo ka tirsan falastiin, iyadoo shirkaasi cunqabateyn dhanka dhaqaalaha lagu saarayay yuhuudda, waxaana la aas-aasay golo islaami ahaa oo hoggaanka uu hayay alxaaji amiin xusein. dhanka kale waxay israa'iiliyiinta iyagana dhankoodii ka aas-aaseen haganah oo ah ciidankii difaaca israa'iil ee xilligaasi, wuxuuna mashruucaasi ahaa shirqool ay dejisay dawladdii ingiriiska, taasi oo ahayd inay yuhuudda ku saaciddo hub iyo saanad walba ay u baahan yihiin, iyadoo dhanka kale carabtii laga mamnuucay inay qoryahooda bannaanka ula soo baxaan oo aysan la soo dhaafin guryahooda. waxaa ise sii taray yuhuuddii ka soo qaxaysay Booland, Ruushka iyo Jarmalka iyo dalal badan oo dunida ka mid ah, iyagoo si xooggan u soo degay falastiin, waxayna tirada yuhuudda gaartay 17%. waxaana halkaasi ka bilowday kacdoonkii dhiigga badan ku daatay, kaasi oo lagu magacaabi jiray kacdoonkii buraaqa oo ah gidaarka weyn ee ku hareeraysan masjidka qudus. waxaana halkaasi falastiiniyiinta ugu shahiiday 116 qof, halka yuhuuddana ay kaga dhimatay 133 qof. waxaa bilowday mudaaharaadyo iyo iskudhacyo aad u waaweyn, kuwaasi oo ka dhacay qudus sannadkii 1933. waxaa 2 sano kadib haddana lagu dilay jiniin oo ka tirsan falastiin shiiqii weynaa ee cisudiinul qasaam, isagoo ku jiray dagaalkii yacbad oo ay kaga soo horjeedeen gumaystihii ingiriiska. waxaa mar kale falastiin soo gaaray dufcad kale oo qaxooti ah, kuwaasi oo ku dhowaa 4 milyan oo dad ah, waxayna yuhuuddii falastiin degganay tiradoodii noqotay 30%. waxaa falastiin ka dilaacay kacdoon aad u weyn, kaasi oo looga soo horjeeday gumaystihii ingiriiska iyo yuhuuddii qaxootiga ku ahayd halkaasi, wuxuuna kacdoonkaasi ka dhacayay falastiin guud ahaanteedba. kacdoonkaasi oo noqday mid isdaba joog ah oo habeen iyo maalinba isdaba socday, wuxuuna socday muddo dhan 6 bilood. sannadkii 1937 waxay dawladda ingiriiska aas-aastay guddi lagu magacaabo biil, kuwaasi oo go'aamiyey in la kala qaybiyo falastiin oo laga dhigo dawlad ay leeyihiin yuhuudda iyo dawlad ay leeyihiin carabta, halka magaalada barakaysan ee qudusna ay dawladda ingiriiska maamulkeeda isku gaar yeeshay. waxaana bilowday carabtii degganayd dhankii yuhuudda la siiyey inay ka soo qaxaan ayna u soo guuraan dhankii carabta. xilligaasi yuhuuddii degganayd falastiin waxay ahaayeen 5.5%, waxayna yuhuudda soo jeediyeen inay dhulka falastiiniyiinta maamulaan 33%, ayagoo ka duulaya arrintii ay soo jeediyeen guddigii biil, waxaase ka biyadiiday falastiiniyiinta. sannadkii 1939 waxay dawladda ingiriiska soo saartay wareegto, taasi oo lagu magacaabi jiray warqaddii caddayd, waxaana warqaddaasi ku qornaa inay sii socon doonto 5 sano ee soo socota yuhuudda u soo qaxaysa dhanka falastiin, waxaana arrintaasi mar kale ka biyadiiday falastiiniyiinta. dhanka kale yuhuuddii xilligaasi jirtay waxay iyagana diideen go'aankii ka soo yeeray ingiriiska, taa oo ku qornayd warqaddii caddayd, waxayna bilaabeen inay daadiyaan dhiig aan loo kala aabayeelin, ayagoo bilaabay in ay dilaan falastiiniyiinta iyo weliba ingiriiskii isaga dhulka soo dejiyey. waxayna yuhuuddii xilligaasi bilaabeen in ay dilaan dhammaan ciddii ay u aragtay inay ka soo horjeeddo boobka ay ku waddo dhulka falastiin. waxyaabihii ugu xumaa ay sameeyeen yuhuudda xilligaasi waxaa ugu darnaa qaraxii ay ka fuliyeen hotelkii boqorkii daa'uud ee qudus ku yiilay, ayadoo qudus ay ahayd xarun ay ka taliyaan dawladdii gumaystaha ingiriiska. sidaasoo kale waxay yuhuudda gowrac ka geysteen xilligaasi dayru yaasiin oo ah meel u dhow qudus. sannadkii 1947 dawladdii ingiriiska waxay go'aansatay inay isaga tagto dhulka falastiin, waxayna ku wareejisay qaramada midoobay. qaramada midoobeed waxa ay qabteen shir degdeg ah, ayadoo shirkaasi loogu hadlayo kala qaybinta falastiin, wuxuuna qaraarka shirkaasi ku caan ahaa go'aankii 181, wuxuuna go'aankaasi ahaa in falastiin laga dhigo dawlad carabta iyo mid yuhuudda ay leedahay, halka qudusna laga dhigo meel ay gacanta ku hayso qaramada midoobeed oo caalami ah. waxaana arrintaasi ku raacay qaramada midoobeed, midowgii sofiyeet iyo maraykanka. xilligaasi yuhuudda gacantooda uguma jirin waxaana ka badnayn 6.5%, wuxuuna go'aankaasi yuhuudda u horseedayey inay xukunto 56.5% falastiiniyiinta. falastiiniyiinta iyo carabtana waxa ay gaareen go'aan diidma ah
oo ay ugu soo horjeedaan kala qaybinta. ugu dambayntiina qaraarkaasi ma uusan fulin, waxaana dhulkii falastiiniyiinta ka bilowday dagaal aad u qaraar. sannadkii 1947 waxayna hagganah bilowday in 25 sano soo socda ay qortaan ciidan ku filan yuhuudda, taasi ay ku laayaan shacabka reer falastiin. dhanka kale waxay jaamacadda carabta iyagana abaabuleen ciidan ay ugu magacdareen ciidankii badbaadada ama samata bixinta. waxaana haddana mar kale soo gaaray falastiin mawjado kale oo yuhuud ah, waxayna noqotay deegaanka yuhuudda 30%. waxayna macnaheedu tahay in deegaanka falastiin ee yuhuudda ay degan tahay ay tahay 8.8%. sannadkii 1948 ingiriiska wuxuu ka baxay dhulka falastiin. bixitaanka kadibna waxaa ka dilaacay falastiin dagaalkii carabta iyo yuhuudda. markii uu dagaalkii dhammaadayna waxay yuhuudda dhulka falastiin qaateen 87%. waxayna falastiin ka dhisteen dawlad iyaga ay ku amartaagleeyaan. isla markiiba maraykanka wuxuu ictiraafay yuhuudda. sannadkii xigana yuhuudda waxa ay ka mid noqdeen qaramada midoobay ayagoo loo aqoonsaday dawlad jirta.